بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك. وحلقة تضبات موضوعي بين منهج السلف والحزب السلفي aan kaga hadlaynay. Xalaqadan waxaan ku soo qaadan doonaa haddii alla idmo, waxaan dhammaystiri doonaa mowduucii ay xalaqadii hore ku saabsanayd. Waxaan kaloon ka hadli doonaa fikirkan iyo culimadii muslimiinta iyo ducaadii adduunka jirtay inuusan waxba reebin oo cid walba meeshiisa uu ku duray ama wax kaga sheegay ama kaga digay. kadibna waxaan tilmaami doonaa arrintan inta badan lagu celceliyo oo ah culimaa taskiyeysay iyo culimaa ammaantay. Sheekh Ulbaas baa ammaanay, Uthaymiin baa ammaanay, Almaani baa taskiyeeyey. maxay ka dhigan tahay taskiyadaas? qodobadaasaan caawa insha allah tacaala ka hadli doonaa. laakiin intaana guda gelin yaan doonayaa inaan ka jawaabo tacliiq yar oo isoo gaadhay oo uu leeyahay wadaad masri ah, yacni wadaad masri oo masar jooga ayay arrintii gaadhsiiyeen oo ay ku yidhaahdeen waxaa jira wadaad la yidhaahdo Khaalid ibn Maxamed Abulacla, wadaad Sheekh Maxamed Umar la yidhaahdaa jiray dheheen oo Kenya jooga, oo yidhi salafiyadu waxay bilaabatay dagaalkii khaliij kadib. 3 wadaad baa bilaabay: Sheekh Maxamed Amaani Jaami, Sheekh Rabiic iyo Muqbil ibn Haadi calayhim الرحمة والمغفرة جميعا. marka waxaa la weydiiyey wadaadkaasi hadalkaasi ma sax baa? marka wuxuu ku jawaabay jawaab marka la isku soo ururiyo uu leeyahay manhajkii salafka ka manhaj buu uga hadlay. kadibna wuxuu sheegay manhajka in lagu abtirsado inay sax tahay, manhaj horena uu yahay, mid uu yahay oo laba manhaj aysan jirin, salafiya cilmiya iyo salafiya xarakiya inayna kala jirin. waxaa la yidhaahdaa asalafiya alxarakiya inay khawaarij yihiin. arrinkaasina inuu isaga darmaday laamaha amniga qaar ka mida, kadibna uu u caddeeyey farqiga u dhexeeya. wuxuu kaloo sheegay salafiyada in la yidhaahdo jaami in loo nisbeeyo ama madkhali inay tahay hamzi iyo lamzi, yacni aflagaadaycay. kadibna wuxuu sheegay wadaadda uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Xasaan, Abu Isxaaq al-Xuwayni, Safar iyo Salmaan inay qutbiyiin yihiin, ikhwaaniyiin oo khawaarij ah. khawaarijta nooca loo yaqaano qacadada waa kuwa magaalooyinka joogoon dagaalka tegin waay. wuxuu ku cileeyey li'annahu waxay fahmeen fahamkii Sayid Qutub bay fahmeen oo qaateen masalada xaakimiyada la yidhaahdo. markaasuu wuxuu ku daray dagaal mayna gelin, laakiin sida Maxamed Xasaan oo kale arrintii Masar ka dhacday isagu goobta muuse teginoo dagaal ma gelin, laakiin dhallinyaraduu kiciyey, mudaaharaadkii iyo wixii buu ka qayb galay kicintooda isagoo gurigiisa fadhiya. saas daraaddeed waa khawaarij qacada buu yidhi, khawaarij qacada. wadaadkaa marka waxaan rabaa 10 su'aalood oo fariinayna u diro. qoladii warkii hore gaadhsiisayna waxaan ka codsanayaa inay u geeyaan su'aalahaas. su-aasha koobaad carabi baan weliba ugu sheegay: إذا كان من فهم الإسلام على فهم رجل معين ينسب إليه كما ذكرت، فما المانع أن تنسبوا أنت وجماعتك إلى الجامي والمدخلي
اللذين تطبقون الإسلام والمنهج على فهمهما لا على فهم السلف الصالح. وهل قارنت أيها الشيخ بين منهج السلف الصالح وأئمته قديما وحديثا وبين من انفرد به هذان الشيخان وأتباعهم لتتأكد من كون النسبة إلى الجامع أو المدخل همزا ولمزا أم كونها حق، حتى تعرف وتتأكد هل قارنت ودرست؟ السؤال الثاني: نعرف أن السيد قطب أخطأ في قضايا كثيرة وكبيرة، لكن السؤال: ما هو الفهم الخارجي الذي انفرد به سيد قطب في مسألة الحاكمية بقيد الخارجي؟ ثم من العلماء سبقكم أنت وجماعتك إلى أن السيد قطب كان خارجياً وأن له حكم الخوارج؟ من سبقكم إلى هذا؟ السؤال الثالث: ما الدليل على أن هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم محمد حسان أبو إسحاق الحويني صبري الحوالي سلمان عودة أخذوا فهم السيد قطب في قضية الحاكمية؟ ما الدليل؟ مع العلم بأن كتبهم ودروسهم مليئة بتقرير قضية الحكم بما أنزل الله. هذه كتبهم ودروسهم ومحاضراتهم، فما الدليل على أنهم أخذوا فهم سيد قطب؟ ما المستند في هذه القضية بالذات؟ السؤال الرابع: ما مستندك أيها الشيخ في الحكم على هؤلاء بأنهم خوارج؟ أو بعبارة أخرى: ما هو الأصل الذي خرجوا فيه وخالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟ ما هي القاعدة والأصل الذي خرج فيه هؤلاء وخالفوا به أهل السنة؟ أين هذا الأصل؟ السؤال الخامس: إذا ثبت أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة أو في أصل من أصولهم، فما هو ضابط إخراجهم عن منهج أهل السنة والجماعة؟ وهل مجرد المخالفة تقتضي ذلك، أم لا بد من ضوابط في الحكم على الأعيان عند السلف وأئمة الهدى؟ هل مجرد أنهم خالفوا في أصل، حتى لو قدر، لو افترضنا أنهم خالفوا في أصل، هل مجرد المخالفة تقتضي على الحكم على الأعيان بأنهم خوارج، أم المسألة لها ضوابط؟ السؤال السادس: ذكرت أن هؤلاء المشايخ لا يقاتلون لكنهم يزينون القتال ويهيجون الشباب في المظاهرات كمحمد حسان، فهل من شارك في مظاهرات أو هيج الناس فيها يعد خارجياً ويأخذ حكم الخوارج، أم غاية ما في الأمر أن ذلك مخالفة شرعية، مجرد مخالفة شرعية سميها مخالفة معصية، لكن حكم الخوارج وهم خوارج بمجرد تهييج مشاركة في مظاهرة خوارج؟ من سبقك إلى هذا أيها الشيخ؟ السؤال السابع: ما هو التشابه أو التوافق والتماثل بينهم وبين الخوارج القعدة في المعتقد حتى يصح هذا الإطلاق عليهم وينضبط الأمر؟